السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو وعثمان عبد الراجع. ما انتو حان وضع شن حرفضات oo aadan ka ogeyn MSWordka. qodobka koowaad current date tusaale warqad aan waxbaad qortay document ayaad qortay waxaad rabtaa marka waqtiga marka la joogo inaad saarto date-ka waxaan isticmaalaynaa alt plus shift plus d alt shift d 27 bishii lixaad 2022 current time waqtiga ama saacada xilliga la joogo inuu inoo soo saaro waxaan isticmaalaynaa alt plus shift plus t alt shift t 3 saac iyo 13 daqiiqo am ah. qodobka saddexaad move the cursor to the last edited location and word document. tusaale sample qoraal ayaan soo gelinaynaa qoraal markaan soo gelino marka waxaan rabnaa halka ugu dambeysay ama meesha ugu dambeysay editing aan ku sameeyno ama aan wax ka bedelno inuu cursor ka dhinkeeyo ayaan rabnaa. tusaale qaybtan oo kale halahan oo kale waxaan ka dhigayaa bold waan ka dhigayaa kadibna fartana waan weynaynaa oo 12 ayaan ka dhigayaa. okay sidoo kale colorkana waan u yeelayaa haya meel kale igey. okay beedkan isagana intaan oo dhan ayaan waxaan sameynayaa italic ayaan ka dhigayaa fartana waan bedelayaa oo noocaasan ka dhigayaa haya sidoo kale beedka ugu horeysana waxaan sameynayaa halahan that best finish your document halahan ayaan waxaan sameynayaa waan kala reynayaa. okay colorkaasaan u sameynayaa sidoo kale halahan waxaan sameynayaa underline hoos ayaan ka calaamadeynaya hoos ayaan ka xariiqaya. okay marka waxaan rabaa document markii aan u dhameeyo meeshii ugu dambeysay ee aan wax ka bedelay ayaan rabaa inuu cursor igeeyo. waxaan taabanayaa shortcut-ka ah shift plus f5 shift iyo waxaan isla qabanayaa f5 ayaan isla qabanayaa jida halka ugu horeyso aan editing ku sameeyay ayuu igeeyay. haya mar kale aan ku celinayaa shift f5 waa kan meeshan ayuu keenay mar kale aan ku celiyo shift f5 waa kan mar kale aan ku celiyo shift f5 saasa ku badaysaa marka. qodobkeena afraad press backspace with control to delete one word. backspace-ka marka aad isticmaalayso caadiyan xaraf ayuu u tirayaa tusaale sample fiiri wakan erey hal ayuu u tirayaa mamasa laakiin anigu waxaan rabaa erey dhan oo isqaba ama erey dhameystiran inaan hal mar tiro ayaan rabaa anigoo aan highlight saarin. tusaale hadda ereygan picture oo kale aan rabaa inaan tiro highlight na saari maayo waxaan isticmaalayaa marka control backspace. controlka waxaan la qabanayaa backspace ereyga dhan ayuu iga tiraa picture dhan ayuu iga tiri doonaa fiiri waa ka haye tusaale halkan oo kale nigey page dhan ayuu hal mar iga tiri doonaa control backspace aan la qabanayaa waa ka okay halkan fiiri
halkan fiiri professionally fiiri maarata control waxaan la qabanayaa backspace hal mar iga wada tiraya professionally mujeedid. Okay, qodobka shanaad shortcut for inserting hyperlink. In mid ka mid ah erayada halkan ku jira inaan link ka dhigo shortcutkiisa. Tusaale waxaan rabaa inaan maarata link aan ka dhigo eraygan documentigan rabaa inaan link aan ka dhigo. Waan calaamadeyna horta highlight aan saaraya. Markaan highlight saaro waxaan qabanayaa control plus k. Okay, control plus k markuu ii soo qabto halkan ayaa waxaan ku qorayaa htt www.google.com kadibna okay ayaan leeyahay. waa kay document waa ujeedaa wuxuu noqday link ayuu noqday. haddii aad ku dhufato si toos ayuu wuxuu kugu xirayaa google-ka ayuu toos kugu xirayaa ujeedaa control plus click hadaa siisid linkiga. Okay,